wardagdaga magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya kacdoon ayaa ka qarxay kadib markii golaha mustaqbalka sidaa ay ugu dhawaaqeen nidaamka doorasho ee ay iyaga diyaarka u yihiin caasimadu way gilgilatay waxaana caawa ciidankii ugu badnaa ay isku haystaan gudaha waxa la soo kordhiyay xarumaha control ee caasimada guryaha mucaaradkana ciidankii ugu badnaa ayaa la duldhigay nidaam doorasho ayay maanta ku dhawaaqeen oo ay soo saareen daqiiqado iyo saacado kooban kadibna xaaladan culus ayay gashay caasimada ciidankii ugu badnaa ayaa kor iyo bari isku dhaafay magaalada dawladuna waxay uga gol leedahay baa la yiri in mucaaradku ay afka ciida u darto madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey wuxuu ugu marmarsiyoon jiray in mucaaradku aysan jirin wax ay hayaan iyo wax ku dhex jira laakiin ugu dambeyn waxay xaaladdu u muuqanaysaa in ay tahay mid culus isla markaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud in laga takhaluso oo qarka u saaran yahay haddaba sidee bay wax u dhacayaan sidoo kale dawladda Soomaaliya maxay ka tiri dagaalka ka socda magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 4 maalin oo xiriir magaaladii uu ku dhashay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dagaal xoog laha ka socda guryaha dab la qabadsiiyay dhibaata la isu geystay wax la isku reebta haweeraatay ma jirto haddana dawladda waxa oo dhan dareen gaar ah ma aysan siin maanta ay ka hadasho oo maalinkii afraad 40 qof iyo wax ka badan ayaa dhintay boqolaal kale waa dhaawac kumanaanna waa ay barakaceen magaaladii ilbaxnimada iyo aqoonta u saaxiibka ahayd ee Jalalaqsi ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhashay ee uu ku soo barbaaray xaalkeedu waa sidee waan kaaga warramayaa danabna waxay nolosha ku qabatay sarkaal ka tirsan kooxda al-shabaab magaciisa iyo goobta lagu qabtay ayaan kula wadaagaya xogahaas iyo macluumaadkaas oo dhan ayaan si faahfaahsan kula wadaagaya saaxiib ilaahay inaad nagu soo biirto oo aad like saarto muuqaalka saaxiibadana u sii share gareyso channelka subscribe soo tiraado gambaleelka furato waa maasan tahay saaxiib waxaan ku bilaabayaa magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ciidankan aad arkaysaan ayaa aad u gaaf wareegaya dawladda federaaliga ee Soomaaliya waxay uga gol leedahay baa la yiri xoojinta amniga caasimada iyo xakameynta dhaqdhaqaaqa xubnaha mucaaradka oo xoog isbiday maalmihii ugu dambeeyay mucaaradka dawladda oo soo saaray nidaam doorasho oo ay iyagu raali ka yihiin isla markaana rabaan inay dawladdu kula shaqeeyaan ayaa si cad u sheegay qodobo dhowr ah iyagoo ogolaaday doorashada nooceeda in markaasi ay noqoto nooc ka duwan kii hore golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka ku wargelinayaa in goluhu ansixiyay hanaan doorasho toos ah xilligan kala guurka ah si markaasi dalka looga saaro cakirnaanta siyaasadeed loona helo doorasho loo dhan yahay heshiis lagu yahay isla markaana leh sharciyad iyo kalsooni siyaasadeed ayay ku yiraahdeen qoraalkooda qodobada maxaa kamid ah go'aanka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxaa saldhig u ah tanaasul siyaasadeed iyo u turidda shacabka Soomaaliyeed ee u hamuunta qaba in si markaasi degdeg ah looga heshiiyo khilaafka doorashooyinka hanaankan cusub wuxuu iswaafajinayaa xaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed u leeyihiin inay si xor ah oo toos ah u helaan ama u doortaan andhaahda wakiiladooda iyadoo la ilaalinaya habaqaybsiga ee markaasi matalaada beelaha ee 4.5 ama 4.5 doorashadan waa mid toos laakiin mid wada toosan maaha tii dad banayna geesi ugu jirtaa ma aha tii 2022 iyo wixii ka horeeyay waa model cusub oo mucaaradku ay soo saareen laakiin dawladdu wali kama hadlin golaha wuxuu ku adkeysanayaa in la joojiyo doorashooyinka halka dhinaca ee natiijadooda horey loo sii asteeyay ee uu wado madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud doorashadaas ma aha mid lagu kalsoonaan karo codadka shacabka Soomaaliyeedna waa inay u noqdaan saldhig sharciyadeed doorasho marka laga hadlayo ay golaha saacad u yiraahdeen golaha wuxuu soo bandhigi doonaa baa la yiri faahfaahinta mabaadi'da hagaysa iyo markaasi habraaca fulinta hanaanka marka si rasmi ah loo fariisto miiska wada hadallada siyaasadeed ee lagu xalinayo khilaafaadka doorashooyinka iyo maareynta marxaladan kala guurka ee wadanka intaas ay si hordhaca u soo saareen waxayna sheegeen intoodii kale in ay u harsan tahay 4 galabnimo ilaa 5 galabnimo warkaas mucaaradka markuu ku soo baxay ama uu ka soo baxay 7 fiidnimo inta aan la gaarin guryahooda ciidan aad u badan loo qaybiyay magaaladuna waxay gashay jawi cakirnaana iyadoo oo wararka hadda la helayeen ay xaqiijinayaan in caasimada Soomaaliya ay ka taagan tahay xaalad jahawareera xubnaha mucaaradka sida ay sheegeen dhowr jeer ayaa horey loo weeraray oo waxa loo geystay markaas weerar kala duwan dagaal ayaana dhacay bishan Juun gudaheeda sida aad la socotaan kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac barakac badanna horseeday oo dagaaladii ka dhacay Howlwadaag iyo Cabdilcasiis markaasi ay qaybta ka ahaayeen hadda waxaa muuqanaysa in magaalada Baydhabo ee gobolka Bay marka aan raahdo ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya marka xaalkeeda uu ka duwan yahay sidii hore isla markaana suuragal ay tahay in isbedel uu yimaado saacadaha soo aadan
haddaba sidee bay wax u socdaan maxaase dhici kara wixii soo kordho wararkeena dambe ayaan kugula wadaagayaa geesta kale dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dagaal ka dhacay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 4 maalmood ayuu socdaa dagaalka maalinkii afaraad ayay dowladdu hadashay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ninka la yiraahdo Cali Xoosh ayaa bayaan waxa uu ka soo saaray xaaladda magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya wuxuuna u dhaxeeyaa laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda Baadacadde iyo sidoo kale mid ka mid ah beelaha reer Shabeelle ee Jareerweyne waxaan xogta ku heleynaa in markaasi dagaalkan uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in dowladdu ay la socoto colaadda ka taagan degmada Jalalaqsi ayna ka xun tahay falalka guracan ee labada beelood ay isku adeegsanayaan waa la soconaa micno ma samaysaa la leeyahay soo kala dhexgala joojiya dagaalka xaaladana si nabada ku soo celiya ayaa la leeyahay markaasi wasaaraddu waxay sheegtay inay ugu baaqayso beelaha nabad laakiin xaalku nabad u baaqis iyo ugu dhaafaba already dagaalada dhacay magaalooyin badan la gubay xitaa al-shabaab inuu ku soo biiray ayaa la sheegay dagaaladaas haddaba xalka magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan muxuu yahay aragtidaada noo reeb muuqaalkan ila daawo